بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط المستقيم. اللهم هدنا صراطك المستقيم. اللهم هدنا صراطك المستقيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. waxaan isku dayi doonaa inaan laba kelmadood iraahdo. maalin maalmaha ka mid ah waxaan qiyaasi karaa ma laba bilood ka hor bay ahayd mise bil ka hor bil iyo bar ka hor bay ahayd ma garan karo. walaalahay jamciyatul iimaan ayaa waxay igu soo booqdeen xafiis. waxaan waxba kaama doonayno, waxaan kaa doonay inaad raacdo ad xafiiskayga noo raacdo oo waxaan hayno ku tusno. waan ogolahay baadhay baabuurkooga igu qaadeen xafiiskooga i geeyeen projectorkan ay gidaarka igu dhufteen waxay tuseen waxay qabtaan. markay marayeen gabadha furunka runtii aad arkaysay markay wax kala weydeen furunka ay iibsato la iska tuuray ee dib looga iibinayo يعني xoolaha gabadha markay marayeen bay oohin bilaabeen laakiin aad baan u calacalay marka waxaan fa in lam yatadarakni rabbi bi rahmatihi fawayl lil abd qadir haduu ilaahay naxariis ila gaari waayo wallahi abd qadir buu ugu sugnaaday maan diintu ma aha muuqaal, diintu ma aha shakli qurux badan, diintu ma aha nasab la sheegto, diintu ma aha taajir baan ahay maaha, diintu ma aha ana sidaniya, diintu isqaad maaha. iibaanka rasuulka markuu ka hadlayay muxuu yiri fa ashara fi sadri wa halka waxa ku jiray ku fiirso qalbigaagu ma nool yahay ma damqatay naxariis ma ku gashay ma ku fikiraysaa kunka shinna hooyada ku siiso boqol kamid ah inaad dhigto oo ugu sadaqayso walaalaha iyagu ma qaadanayaan kuwa ay sheegeen aad aragteen ba qaadanaya. waxaan ka ooyay maalin bari dhexdii ahayd ayaa muddo laga joogo 3 sano ayaa lacag baa la soo diray. waxa lacagta waxa siisaa dadka ugu liita. waan fikiray iskaadan ka shaqaysiyay waxaan ogaaday inay jiraan dumar xoogtata oo guriyaha kuulaya oo guriyaha dhisa. dumarkaasaan waraystay mid waxa la ii sheegay iyadoo 8 ku jirta inay halkii iyadoo kuuliyo ku jirtay inay ku dhasho la qaaday. waxa maqashay masaakiinada waxa maqashay Abdul Qadir baa dadkii kooliga masaakiintii dumarka wax siinay wax u qaybinaya. guriga igu timid gooran wax qaybiyay gabadh baa islaam baa ku doonaysa baa leeyahay waa la fariisto maxaad iga doonaysaa waxay tiri wixii aad qaybinaysaan ka doonaya dehooyo waxa waan dhameeyay waan iri saanti way ooyday maxaa ka ooyay waan iri waxay tiri waxaan galaa buulaan galaa Sheekh Ali Jawhari dabadeeda buulkii waan arkay waxay tiri wadi arkayo urban la yahay waan dhawahay hawlana odagayga u soo xamaalan jiray lacagta yar markaan soo shaqaysto ayuu albaabka afarta iyo barka ilaa shanta marka waxoogaagi la soo siiyo ayuu istaagi jiray wuxuu oran jiray lacagtii jaadka keen lacagta jaadku iga qaata inta yar ay soo hadhana caruurtaan u biyeeya iyadoo daalan oo maanta oo dhan koolahay ayuu haddana wax ka dayaa balada u fiirsada lacagteedu buu qaadanaya oo daalanad cadceeday taagnayd haddana wax buu ka dayaa. waxay ii sheegtay haddaba maanta taladii baa nagu cadaatay anigii kooligii ma gali karayo aroortii ma waxa dantii waxay nagu galistay inuu jaadkii waayay. dabeetana waxaan sameeyay tir aroortii aniga kooliga taga magacayga kooliga aniga waa laga ay naxariisanaya aniga booskii kooliga qabta isaguna shaqadii buu galaa. haddaad u aragto laba qof oo isjecel ama waalid iyo inankiisiyo iyo waalid iyo maadartay waalid ku dhalay oo kala tagay laba magaalo waxaa laga yaabaa inay isku ooyaan
iyagoo meel ku kala maqnaa hadday isku yimaadaanna inay naxariis daraadeed isku ooyaan iyo jacayl isku hayaan gabadhan waan qiimeeyinta ooyis waxaan hadday ooyintaasi nagu daadan lahayd jidhkeena way gooyi waa maadarta way jarjari lahayd because qalbigayga gubanay marka diyaar ma u nahay inaan walaalaheen caawino anu runtii waxa leeyahay ilaahay garansiiyay inuu duceeyna noqdo adoon wala dadka walaalaha caawiya ma yihi laakiin namadu waxay jeclaadeen inaan u yar hadlo way jeclaysteen ilaahayna waxaan ka baryaynaa inuu ilaahay sa khayr kale inoo waafajiyo ilaahay waxaan ka baryaynaa inuu dad wanaagsan naga dhigo waxaan imika aan ogaaday habluhu inay yihiin kuwa ugu wanaagsan ee rag ka wanaagsan ragga waxa u baydheen waxyaalo aan loo baahnayn ama siyaasad ama qabiil ama waxaan loo fadhiyo marka hablahan waanu ducaynaa ilaahay khayr hayna siiyo ilaahay khayr hayna siiyo ilaahay khayr hayna siiyo jumciyadan waxa la warwan garab taaganahay anagu ama fikir uma nagu soo kordhin